wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso ayaa si wada jira u shir gudoomiyay shir looga hadlayay u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku aadan qabanqaabada tartanka xiisaha badan ee orodada fudud oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho iyo sidoo kale maalinta nabadda adduunka oo nagu soo food leh. shirkani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaasha degmooyinka, agaasimayaasha dowladda hoose xamar iyo mas'uuliyiin kale. howlwadeennada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa uga dooday sida ugu habboon ee loo dardargelin karo u qabsoomidda tartanka xiisaha badan ee orodada fudud kaasi oo ka dhici doona magaalada Muqdisho iyo sidoo kale munaasabadda maalinta nabadda adduunka iyadoo tartankaasina ay ka qayb gali doonaan dhalinyaro kala socota degmooyin gobolka Banaadir oo ka kooban gabdho iyo wiilal. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa aad u bogaadiyay in tartankaasi uu ku dhaco si jawi degan ah. shirkan ayaa markuu soo ilaaday waxaa si guud warbaahinta qaranka ula hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye. waa maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka, sidaas la midana waa maalinta ciyaartooyga Soomaaliyeed. sanadkii hore waxaan ku xusnay orodka gaaban ee Muqdisho mini marathon. hadeerna isla sidii ayaan ku ballanay gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariisow injineerka in sanad kasta ay dhacdo munaasabadaas ay u dhacdo in la qabto Muqdisho mini marathon sida caasimadaha adduunkaba ay uga dhacdo. waxaan u mahad celinayaa guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan xiriirka ciyaaraha fudud. waad ogtihiin horumaro isboorti iyo horumaro ciyaaro ama orodyahanadeenna ayaa socda. kaalimaha horaan galaynaa inay tiigsadaan da'yarta dhalinteenna in horumarkaas dalkooda ay ka qayb qaataan. bilado dahabaan soo hoynay 32 sano kadib in 1500 qaaradda Afrika iyo 800 mitir in aan ka galno kaalinta koobaad. maanta oo aan hadlaayo East Africa countries-ka ayaa orodka galayay, waxaana ugu jirnaa finaalihii inaan usoo baxnay ayaa iyadana guul kala ah. marka kulligeen waxaan leenahay kubadda cagta, ciyaaraha fudud, ahmiyadda ay leeyihiin, basketballka, tenniska dheer, kulli ayaan siinaynaa. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.